بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إنجنير علي عبد القادر oo idiin soo jeedinaya casharadeenii taxanaha ahaa ee Microsoft Office gaar ahaan qaybtii PowerPoint 2007. PowerPoint-ga marka aan rabno inaan furno oo hore ayaan soo sharaxnay wuxuu loo furayaa sidii loo furi jiray Excel-ka iyo Word-ka iyo Access-ka. waxaad u furi kartaa dhowr qaab ay ka mid tahay inaad desktop aad tagtid kadibna aad dooratid right click kadibna aad dooratid PowerPoint. waa kana kan kale xigana waxay tahay inaad tagtid start menu-ga kadibna aad raadsid Microsoft Office PowerPoint. waa kana dhufo Microsoft Office PowerPoint-ga sidiisa waxaa la isticmaalaa loo isticmaalaa in presentation wax lagu soo bandhigo, sida in lagu diro assignmentiyo lagu yiraahdo soo bandhig, ama macalinku uu isticmaalo ardaydiisa wax lagu soo bandhigo, ama si kale ha noqoto adiga muhiimadda waxay tahay in wax lagu soo bandhigo ayaa loo isticmaalaa PowerPoint-ga. sida kale aan hore u sheegno waxay tahay in qeybahan hore iyo waxyaabaha loo kala yaqaan oo qaybta kore hadda ku qoran presentation 1 qaybtan ay ku qoran tahay presentation 1 u jeedid. presentation 1kan waxaa loo yaqaanaa title bar, kanna waxaa loo yaqaanaa office button. ujeedaa kuwaan ujeedaa hore maxaan ku sheegnay taxsuustabal waxaa loo yaqaanaa iyadana quick access toolbar. marka aad rabtid inaad wax ku dirtid waxaad sameynaa meeshaanaad furaysaa kadibna waxaad ku diri kartaa waxaa u baahan tahay hadda iguma jiro meeshaas ma open iguma jiro new open ugu dar waxaad ku darsatay kan waa sidaa. kan waa home tab, insert tab, design tab, animation tab, slideshow tab, review, view, edit waxaa ziyaada ku jiro intaas ugu kooban. inta badan waa soo wada aragnay. kanna waa hore in badanna waan arki doonaa. normal waa view iyo macnaha slide sort iyo slide show. kanna waa cabirkii iyo wixii kana yareyntii wixii waxaas waay. kan waa note-kii aad ku qoranaysaa meeshaan. waxa kale uu leeyahay intaad tegaysa kan waxaan ku sheegnay office button hata waa Microsoft calaamadiisa u jeedid. kadibna kan aan doorano PowerPoint aan doorano. kan PowerPoint meeshaan waxaan sameyn karnaa kan waxyaabaha aragtidaad bedeli kartaa u baahanta ama ka bedeli kartaa. saare kan aan bedelo kalarka uu leeyahay kalar aan dhahno black oo kale. kadib aan dhahno muxuu jeedaa hadda wixii waa iswada bedelay. markaa rabtid inaad ka bedeshidna meeshaas tegi kadibna waxaad tegi PowerPoint option kadibna kalarka aragtidaad dooranay. mid hadda kalarkii kii hore waxbuu iska bedelay idan kii hore muxuu ahaa blue ahaa aan ku noqon haddana aan dhahno bluegiisaan ku celino aan doorano. waxaan ujeedaa waa kaas waa intaas. kanna waxaa ujeedaa waa slideka soo gelaya يعني presentation halkii presentation wuxuu ku koobnaan karaa dhowr slide hal iyo wixii ka badan u ahaan karaa. marka aad rabtid inaad ku soo dirtid waa kana meeshaan u faanay aadna waa arki doonaa casharka xiga. laakiin marka aad rabtid inaad new presentation aad samaysid new aad leedahay waa kana ujeedaa blank create waa hore soo aragnimo wax ku aragnay x-ko kala xir agreemaya waa ka. marka casharkeena kiisa xiga intaynu dib u kulmayno waa aniga injineer cali cabdi qaadir oo idin leh sida iyo nabadgelyo.